السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسود بعد هبين عصب ونس وذكرام عاو حنا مسترنا برنامج أو أما موضوع أو الشخصية ذا كلا دبن إدتك عاو شخصية ذا سوق هذا وحواية dependent personality. Dependent personality marka كلمة أو dependent لأنه وحا qofka markay qof dependent ku tahay waxa waaye sida oo cunuga hooyadiisa dependent ugu yahay cunugaaga aduu ku baahi waayo qofka kale aantiis noolaan karin camal waaye so cunuga masalan waalidkiisu u baahan yahay adaa take gareynaysid adaa school geynaysid adaa inta ka bixinaysid so cunuga dependent oo kugu yahay ilaa oo ka gaara heer oo isaga go'aan samaysta kaligiisa qofka waalidkiisa oo dependent ku yahay ama oo ku tiirsan waaye macnaha oo kelmadda oo dependent marka la dhaho so shakhsiyadahana shakhsiyad oo waxaa jirto dependent oo qof inay ku tiirsanaato ma ahane kaligeeda isku filnaansho gaari karin marka qofka oo dependent waxa waaye qof oo waqtiga badankiisa u baahan qof kaleeto inuu support gareeyo oo nafteeda waxa ka aaminsan inay kaligeed wax isku tari karin oo kalsoonida ku yar oo kaligay ma survive garay kaligay ma noolaan karay inay qof hogaamisa camal waaye qof oo la hogaaminayo waaye so marka waxa waaye marmar waxaa loo marmar dadka markii oo Mareykanka ka hadlaya qofka dependent personality-ga qofkan waxaa la dhahaa xataa Soomaalida waa maqlay marmar waxaa macangeg waaye la dhahaa waxaa wax yar ma laga dhaqaaqi karo waa soo qaylinay ama ilmaha macangeg camal anaga badanaa ku magac markii macangeg qof la dhahay ilmahan ka hadalnaa markii oo cunug yar camal oo hooyada haday dhaqaaqdo hor ka qaylinayo sidoo kale qof weyn oo waxa jirta saas personality oo dependent oo hadii oo masalan nimankii naga way noqon karaa soo naagta haday baxda camal wax yar soo daahda ka soo waco daba tiray telefoon maanta dhan waa soo daahda maxaa dhacay naagan saas camal waayo oo markii oo ninka dhaqaaqo wax yar maanta dhanka daba shaqeynayaan wacayaan oo waa cabsanaa kaligay imaaw just waxa waaye dependent personality anyway dependent personality waxay bilaabataa markii ilmaha ay yaryar yihiin ay ku bilaabataa badanaan waxa u sabab kalsoonida trustiga ka taga cunuga so marmar waxaa la dhahaa cunug masalan oo yar hadii oo hooyadiis ee baxda ay soo noqoweyso cunugi waxa ku dhaca waxa anxiety la dhaho kalsoonida ka tagta camal ama trustiga ka tagta so marka anxiety-ga seeta waxay keeni kartaa cunuga inuu qof kaleeto ama xataa maybe marka weynaada xaaskiisa camal inuu dependent ku noqdo because markasta waa ka cabsaa qofka inay baxdo ay soo noqoweyso so waxay noqonaysaa inuu qofkan le oo fiirsado oo noolaan waayo qofkan dartiisaba ama qofka haday ka tagtane isla markii waxay noqon qofka inay replace gareeyaan ee qof kale noloshooda soo gasho oo booskaas buuxiso waxaa kale marmarna waxaa sabab noqon karto overprotective parent yaa lahaa like waalidiinta qaarkood kuwa oo waxaa jiraan ilmahooda maanta dhan hadii oo hawada ka xigsanayaan la dhahaa like wax yar hadii oo sabar cunugayga la hadla cunugayga la taaban cunugayga la jiro cunugayga dhahayaan cunugii wuxuu noqohaa hadii wax yar oo soo gaaro inuu hooyo ku carra ama aaba ku carrayo because waxa laga badiyay si loo aamin gelinayo cunugii oo waxba yo taaban loo dhahay cunugii wuxuu noqday inuu jabaya camal isaga dhan oo la ilaaliyo waay so dependent personality-ga saasa keento so inuu qof ku tiirsanaado ma ahane oo qofkaas ay celiso hadii kaleeto uu cabsaha dhibaato inay gaarayso u maleena sida loo gartaa qofka dependent personality qabto sida aan dhahnay mid waxay qabaan qofka oo dependent personality qabta ama qofka oo qof inay ku tiirsanaato leh u baratay kalsoonida aad iyo aad ugu yar oo heer oo waxa ma gaarsiisna inay go'aan ma gaari karto markay rabto inay go'aan gaarto masalan kasoo qabo masalan jaamacad hebel aan rabaa inuu aado qofkii dhahaa dad ay dhahaan waaye that's good idea jaamacadaas way fiican tahay niyo yani dad badan inay waxa dhahaan waaye ay ka waaniyaan inay jaamacadaas ay fiican tahay oo hadoo aado qof fiican noqonayo oo yani heer sare ka gaarayo kaligiis ma dhihi karo ka jaamacadana rabaa waa baxa waa aada waxa waaye maanta dhan laga kor hadlo oo dhaho la riixa waaye so taas calaamadaha loo gartay kamid tahay mid kale wuxuu waaye
go-aan marabiyo inuu gaaro inay qof go-aanka u gaarto waaye soo dhinac jaamacadda muxuu ka baran lahaa inay qof u gaarto waaye dhahdo adi waxa ku fiican tahay xisaabaadka ku fiican tahay inay xisaabaadka inay baratid waaye camal inay qof dhahdo waaye laakiin isaga inuu kaligiis qofkaaseeto dhaho maanta waxaan rabaa biology inaan barto because I think I like biology ma aha waxa waaye maxaa qof dadka inay u sheegaan inuu dadka oo ka farxiyo ee ku farxaan waaye majorkiisa maaha inuu isaga ku faraxsanaado ama isaga wuxuu jecel yahay waxay qabaan dhibaato waxay ku qabaan inay disagreement express garayaan disagreement waxa waaye qof kasta opinion uu leeyahay qof kasta ra'yi uu leeyahay ra'yigooda ma dhiiba karaan sida ay iku ra'yigooda wixii yani waxa ma dhihi karaan ani yani qofka ay isla ag fadhiyaan ra'yi ka duwan hadday dhiibtaan waxay ka cabsanayaan inay qofka dhahdo oo saaxiib ma noqonayn marka ani aad isku ra'yi manihi camal soo ra'yigooda ma dhiibanayaan waxa waaye way ka cabsanayaan inaan laga taga saaxiibtinimadooda ay luus gareeyaan walwal hay qabaan waligood soo markasta waxa ma arkaysid ra'yigooda oo runta ah inay sheegeen inaa arkaysa oo ay markasta qarinayaan ee muluq leenayaan ama dhinac marmarayaan laakiin siraganimo ah ama ama dumarnimo ah inay qofka hor istaagaan ma dhahayaan ani saas ay la tahay ama qaada ama gudiid yani wax mid ka dhexeysa iska yar mid kale wax oo waxay dhibaato ku qabaan inay initiating project wax la dhaho like inay dhahaan fikrad markay madaxad kusoo dhacday fikradaasi tan suubina ay ku dhaqaaqaan ma sameyn karaan wax maanta waxay ka cabsanayaan oo dadka maxay dhihi doonaan sidee la arki doonaa soo aad iko hamigooda weyn yahay oo energy hayaan ee waxay ka cabsanayaan dadka si ay arki doonaan sidaas darteeda ee waxay sameyn lahaayeen iskaga dhaafayaan waxay kalooto ay necban yihiin ama uncomfortable ay ku yihiin inay alone noqdaan ama kaligood inay joogaan soo haddii masalan haddoo ninka naag qaba camal ay naagtii isku xumaadaan ay ka tagto ma noolaan kara kaligiisa dhibaato ku qabaa inuu wuxuu always wuxuu dareemaa inuu wax ka dhiman yahay and yeah sometimes qofka waxa ka dhiman yahay marka xaaskaaga ay ka tagtaa ama wiilka ku qaba oo kala tagtiin laakiin qofka waxaa la rabaa inay like ma aaminsana inay isku filan yihiin oo hadduu oday kaa taga camal inaa ilmaha kursa kartid oo shaqaysan kartid oo noolaan kartid ma aaminsana inay fadhiyaan guriga waayo oo hebelaa maqan hebelaa waxaasay suubi lahaa hebelaa suubi jiray yani walwal badan oo sidee ku noolaana nolosh ma soconayso hebel la-aantiisa camal galaayo mid kaleeta ay sameeyaan hadduu hebel ka tagane isla markii nin kale raadinayaan ama naag kale oo booskiisaita buuxiso because maba rabaan inay cidlo kaligood ku noolaadaan xataa marmar waxaa dhici karta dadku isku xumaadaan haddana way kala tagaan laakiin way isku soo noqon karaan yani janis oo space ay siinayaan isaga spacekaas yar qofka dhib dadka oo qabaan dependent personality spacekaas yaraa dhib ku ah oo ma joogi karaan inay qof soo geliyaan booskaas maahane kuwaas waxaa ku arkaysaa si dhaqsi badan ee dadku baranayaan si dhaqsi badan ee isla markii qofkay bartaan oo ku gursanaya dhahayaan isla markii yani waxa waaye janis ma baysiinay qofka inay baratid oo sheekeysatid aa aragtid qof oo ku qalanta ma tahay mise maya isla markii waxaa la rabaa inay qof guriga soo geliyaan si qofkaasayta gadaashiisa iskugu qariyaan because runtii waxa waaye qofka oo dependent personality-ga qabto adduunyada inay hor istaagta ee dhahda waa kana wax kasta keena I'll handle it ma aha waxa waa qof gadaashiisna isku qariyaan ay jecel yihiin oo qofkaasayta ay hor istaajiyaan sidaas darteed isla markii booskaasayta u buuxinayaan dhinaca oo treatmenting haddii la dhaho sida hore ooga hadalnay most of the time dadka oo shakhsiyaadka ciladaha ka qabaan kaniini ma laha oo lagu daaweeyo personality disorder waxa waaye hadala lagu daaweeyo iyo therapy la baro maskaxdooda wax oo cognitive restructuring la dhahaa jiro maskaxdooda inaa la wareejiyo oo la tuso dhinaca kale because hal dhinac leh ujeedaan waana kasoo jeesa layihiin marmar dadka oo depending personality qabaan because anxiety-gooda ama walwalkooda badan marmar waxaa arkaysaa inaa waxa la siiyo kaniini oo anti anxiety camal oo yani walwalkaasiyad kastoo ka dejiyo laakiin wax oo kaleeto oo hadda aan dhihi kara ma laha daawo saas ahaa jiro ama kaniin saas ahaa jiro personality-gaasi bedelayo waa intaas iyo wellness with Ikram waa mahadsantihiin insha Allah khamiista soo socoto iyo personality cusub ha iloobin inaa like share iyo subscribe ee dhahdid insha Allah waa intaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.